hadda ka hor annagoo dagaal iyo dhib iyo wax walba ka jiro waxaan ahay number jira oo Ethiopia kamida oo wuxuu la yiraahdana laga doodo wuxuu nacam yiraahdana taageero loo arko 4 sano u dambeysay waxaana qabsaday team aan siyaasadda horena ka warhaynin to ayagu soo barteen jirin to ay show sugayaan aan jirin oo Facebook la yaala oo moodahay meeshan ciyaarta Facebook in lagu hayo team kaasi marka hadday maqan yihiin looma yeero hadday joogaan wax lama weydiiyo haddii wax la soo amrana way fuliyaan السلام عليكم مخياري halkani waa Harnoolaato aniguna waa Yaan la Xuseen Cabdi waxa laga yaabaa qaarkiin inaad ka warqabtaan xiisadaha ka taagan wadanka Ethiopia oo marba mar ka dambeysay ay meel cusub ka dilaacayso taasi oo la sheegay in ugu dambeysay dawladda Ethiopia oo qaadatay aragti cusub oo ah in la sameeyo caasimad cusub oo loo guuro taas oo lafteedu la leeyahay waxa ka taagan dhibaato bulshadii deegaankaasi deganayd oo la barakicinayo haddaba si aan macluumaad rasmi uga helno xaaladaha ugu dambeeya dalka Ethiopia waxaan barnaamijka ku casumay إبراهيم محمد حسين إبراهيم ديري oo ah gudoomiyaha xisbiga FEB ee deegaanka Soomaalida إبراهيم kusoo dhaw barnaamijka aad baad mahadsantihiin bahda Harnoolaato إبراهيم maxaa ugu dambeeyay marka laga hadlo xiisadan la leeyahay waxay ka taagan tahay Ethiopia gaar ahaan agaarka caasimadda Addis Ababa maxay ku qotontaa arrintan marka hore بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين dadkana fiirsanaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh intaas kadib Ethiopia waa chapter race daba socda marka page baa la furaa labadii sano u dambeysay waxaanu ku rafaadsanay deegaanka Tigreega oo dagaal adag oo dad iyo xoolaba lagu dhamaaday oo ka dhacay markii hadda laga soo laabtay waxa la filayay in wax walba uu xagga deganaanshaha u dhaqaaqo waxaan moodaa chapter kale oo sii sugahayay in baa hore laga sii furay waay maxaa kamid ah markii saa dagaalka looga soo baxay dawladdu waxay ku dhawaaqday inay ciidamadii new booliska ee gobolada ka jiray ay baabi'isay ama ay baabi'inayso amar yani wax soo saartay wareegto waay wareegtada qarax baa ka dhacay Ethiopia oo dhan way dawladdu uga gol leedahay inay baabi'iso awoodda waxay leedahay qowmiyadaha goonida ay u leeyihiin wuxuu caqabad ku yahay wadankii iyo kala dambeyntii waay adduunka markii wax jiray bedelayso process iyo waqti iyo wacyigelin iyo wareegto laguma bedelo wuxuu waa 30 sano hadda soo jiray nidaamka federalismka ee Ethiopia qowmiyadaha ku dhisan ee qoys walba oo booliis gooni aleeyahay hawsha marka rabtay inaad ka takhalusto ma ah wax wareegtiya amar ku soo baxa shirar aqoon-yahan dhan walba laga istaago la doodo meel la geeyo baarlama process dheer waxaan qaataa sanad labo ilaa dadku ka qancaan Ethiopia marka qaanuunka kama jirseedo Ethiopia wareegta ka shaqeysa wax la yiraahdo hore iyo haddaba halka marka maxaa ka dhacay yaa ka biyadiiday marka qowmiyadii Amharada oo ahayd qowmiyadii alliance-ga kula jirtay xukuumadda markii Tigreega lagu duulahay ee ugu muhiimsanayd la dhihi karaba qowmiyadda boqolkiiba dagaalka Tigreega gashay bay ahayd iyo waxa isku dhacay dawladii qodobkan iskaga dhaceen waxay dhaheen anaga ciidankana new booliskana ma kala dirayno sababtoo ah Tigreeg oo qadiyad dhul bay isku haystaan iyaga Tigreegu yaa jira marka ma kala diri karno iyo wad kala diraysaan halkaas dagaalka dhacay dagaalkii hadda uu socdaa meel adag buu marayaa yani marka dambeysana uu sii xumaanaya marka intaan qowmiyadii kale loo gudbin baa maxaradii diiday iyadii marka dagaal lagu qaaday marka laga qaado macnaheedu waxa weeye alliance-ga qowmiyadii koobaad ee dawladda kula jirtay weeye qolada hadda dagaalka gashay kadibna waxay dabada la sii galeen wadamo kale oo jaarka ah oo iyadana ay saaxiib ahaayeen Ethiopia ay saaxiib xagee ka yimid marka ra'yigan ahay la baabiyo ciidamada deegaanka dawladda xukuumadda baa keentay sabab kale oo ay u keentay ma jiro oon ahayn awood wuxuu noqday qowmiyadeed oo federaalkii la tartanta oo ciidanka militariga ciidan kale oo aan ka amar qaadan wax saas laakiin xaqiiqada meesha taala waxay ahayd kalsoonida in Ethiopia lagu wada jira qayb kamida oo qowmiyadaha garantii siinaysa bay ahayd oo markaan Soomaali ahay oo ciidan dhowr kuna leeyahay kalsoonida ay ugu jirta Ethiopiyadii lan kalsooni dhaxdanada lama abuurin oo meeshan xoog baa qowmiyad walba lagu qabsaday qowmiyad walba waxay isleen in yaro awood aad gacanta ku haystaa wallahi Ethiopia waad ku sii jiri kartaa haddaad inta aad leedahay intii baa hadda la baabiyay marka ba ciidanka wax loo sameystay in deegaanka lagu ilaaliyo amaankiisa ma in qowmiyaduhu ay iskala ilaaliyaan ma in dawladda dhexe la iska ilaaliyo maxaa loo sameeyay asalkiisu wuxuu ahaa Tigreega sameeyay jabhadihii marka dagaalamaya doorka jiray anaga Oromo Afar cid walba jabhad bay lahayd yaa militariga kale inuu la dagaalami karin Tigreega ugu qanceen iyo asalahan halkaas u sameysteen laakiin anagu wax kale aan ka faa'iidnay ciidan Soomaaliyeed buu noqday madaxweyne Soomaaliyeed buu ka amar qaadanaya xuduudihii deegaanka Soomaalida u ilaalinaya
ujeedadii dooni waxa laga lahaade markii dambe waxay noqotay qowmiyad walba danteedii iyada ugaarkeed uga faa'iidaysatay qabaa'ilku hadda markay islaayaan isaga noo kala celiya xuduudda markii hadda al-shabaab naga soo galeen isaga naga difaacay xuduudaha Ethiopia la leenahay qowmiyadaha kale markay nagu soo dhulkana inay qabsadaan rabaan isaga naga celiya anaga dhaxday yani wuxuu noqday ciidan ay ummaddu u baahan tahayba laakiin dadkii hore keenay uu sax bay u keeneen waay meelaha qaar waxa la sheegaa markii Ibrahim ciidamada deegaanada qaar ka jiray dowladda Ethiopia ba maalgelin jirinba oo dhaqaale ajnabi heli jireen oo dalal kala badana kala taa ma jirtaa way jirtaa anaga mesela deegaanka Soomaalida oo kale budgetkiisa Ingiriiska bixinay ciidamadii wala meesha laga wada adeeganayay bay ahayd maadaama gobolka nagu shidaal leeyahay wadamo badan oo reer galbeed oo gaar ahaan reer Yurubka waxay u arkaan meeshan inay u sameystaan wax oo ma aragtay masaalixdooda u ilaaliya dana badan baa marka laga lahaa Ingiriisku budgetka kaliya wuxuu bixinayay new police kanaga Tigreegu ciidanka waxay u sameystaan inay jabhado anaga nagula dagaalamaan annagoo shacabkii iyo dalkii iyo dadkii ana waxaanu ka fahnay inuu faa'iido kale noo leeyahay ujeeddo badan buu ahaa laakiin ma lahayaa marka caddayn tahay in Ingiriiska kale uu new police lacag siin jiray aniga shakhsiyan aniga muqaabalay la yeelatay gabar ka socotay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ingiriiska ama 2013 baa hay oo leedahay direct way weydiisay waxay tiri ciidankan anaga budgetkiisa bixinaa waxaana la sheegayaa xadgudubyo badan inuu sameynayo seed u aragtaa أنا ما بقول بالمعلومات ما بهيني بيضا يشكت. واي. مركي يضوى حقيقة ما ننكر سنة. هذا وجه جوابت مركا. أنا جوابت عن بحيه وحقيقة هيد عيدا كان دو عيدا صوماليات أو دجان كو أديجي هاي أو رب كان حد جدب كأو صومالي اللي جت جوجينا يوم ده واحدة بقى مارجنا إنه يجرو ولا تاجره لكن هدي اللي جو بربرنا يدك الصومالي ده أو أبيوس كو صومالينا يوم ده واحد لوجو بجت لوسي مقبول. أنا مركان صالح وأنا إنه حقيقة جالسين نتواضع وطنية وشدال كني وحنا أم وغضا ضد كنا يجيب كيسة. لكن عندما دمبيو وين جالسون؟ هذه الدجاج كجيستين. طبعا كيسة أنا قدام بيسي وحلو استعمالي أنا قد جبهتها سيد الله تعالى لها هي شعب سيد الله قدر لها. لكن مركي أنا جا أنت ماشي كبح سيستم كي مركي جري أنا جا نميد سيستم كان مصطفى أبيه إذا كإن بدن وحلوجه هي حق فائدة ده حدودها نجي منه إلى عليه الشعب كحدوده بهذا كل سنة يعني أدب حديدين هي وحو نقضي لا صحي كرو لكن اذا laga burburiyo khatar bay marka qodobkaas waxaan rabaa inaan dhaho way sababtu waxaan rabaa marka Ingiriiska kale uu lacag ku bixinayo oo ciidankan new police lacag u siinay maxay ahayd waxay ahayd maadaama gobolka naga shidaal laga helay in la helo ciidamo ay iyagu leeyihiin oo hadii loo baahdo ilaa Ethiopia mar walba cabsi waxa jirta warmeeshan armay kala dhaqaaqda ihtimaalka amalka reer galbeedku aad bay u aaminsan yihiin meesha waa meel la isku hahayo dadku isma doonayaan meeshan marka si loo ilaashado ciidan meeshan u dhashay oo dadkana aan sameeyno oo wadanka jooga oo isagu hadii la kala tagay hadii kala isagu jooga oo noo ilaaliya waxaan isleeyahay mid kamid ah weeye asbaabaha ay u taageersan yihiin waay marka waxaan rabaa inaan dhaho Tigreey kadib markii laga soo laabtay la filayo in xagga nabadda loo guuro arrintan ay dawladdu gashay qarax bay dhalisay ilaa maanta uu socdaa ko haddana iyadoo aan indhaha la kala qaadin usbuuci laba usbuuc ka hor waxa la soo dhigayba برنامج حزبي معهد إلى معهد كسياسة دو أديس أبابا كيالا وحول دراسة عن لح بلود ودني بانو صوب بندقينا وحول صوب بندقي لحظة قضب فدراليزم كتصيسة يكون جرت الدستور كا إن إثيوبيا دستور كإثيوبيا إن لقى سعر إن كلام دراسة كسو سمعنا يعني نتيجة وحنا نقطة أغلبية إثيوبيا وحركة بتاعنا لقى سعر الدستور أو فدرالك لقى جورو ها فدرالك لقى جورو وقرح لبعض يضنا واي maxay yeelay Ethiopia wax nidaamkan federaalka ka soo horjeeda inta la og yahay qowmiyadda Amxaarada jirta yani markaan si kale u dhaho 85 in ka badan dadka ku nool Ethiopia boqolkiiba yaa waxay rabaan nidaamkan federaalka seed ku dhihi kartaa aqlabiyadii waxay rabtaa adoo macad oo muxtaram ah oo jiha cilmi baaris ah waxay dad baan interview la yeelanay Soomaalida kale waxyaabo la yaab kale waxa kamid ah Soomaalida interview aan la yeelanayo 64 baatiri bay dhaheen si jiro nidaamka federaalku يلا يا شيء يا يقانا حلقة بقى أفرق قفوا وسكبا محارودو أدي سبب الدجال هنا اللي حد له قومية الصوماليين وحانوا وين إن عندنا هذا بقول نقولين أيديه له أنا بفضل لحظة يا فربوا نمبر بدن بقى وديد ملفته لكن أنا وحنا قلت على الأيام ورمنا فيري أنت يلا كل من كوب يسقاش باتري بقول كيبا فضلالكوا هجروا أنا كبس يجي على القومية دول فضلالك في السيدة وحوخ الربيع مرة أنا كنت سو دراسة سمرك محيط سيسا وحيك أسد درين كدتك maxaa sabab u ahaa new police intaan la kala dirin wasaaradda difaaca iyaduna waxay tiri daraasad aan intaas oo bilood waday baan soo bandhigay oo aan ku daraayo federaal in la kala diro ciidamada new police iyo in kale annagoo tii qabna oo ilaa markii new police la kala diray daraasad naloo aqriyo wasaaradda difaaca soo diyaarisay haddana daraasad naloo keenay la leeyahay federaalka waa lagu kala dirayaa
arrintaana hadda waxay dhalisay inteeda yaryarkeeda annagii iyo cafartii iyo benishagu dadkii adraafta ahaa iyo oromo de 190 intentionkanagi baa haddana istaagay iyadana waa qarax labaad waa meeshii arrin loo dhaqaaqa xagga deganaanshahaas moogta inta iyadoo taagan tahay oo la leeyahay war maxaa la sameeyaa bayaan soo saarnay oo la qaylihayo ya haddana dawladdu waxay tiri magaalo cusub baan ka dhisahayaa Addis Ababa korkeeda magaaladaas magaalo casri ah laga dhigayaa waxa loo rarahayaa hay'adaha dawladda dalxiis alaab ilaahay baa la samaynayaa hay dadkii meesha joogay yaa la yiri waa laga rarayaa marka aqlabiyadda meesha degan muslimiin bay ahayd yaa marka deegaanka gobolka Oromiyo ka tirsan yahay dadka meesha degan waa la badan yahay laakiin waxay u badan yihiin tirada dadka muslimiinta ah 22 masjid tiradooyinka burkan 23 bay sheegayaan yaa meesha lagu burburiyay يعني waxa la heli karaa siyaabo badan oo looga wareego aw guriyihii kale aw guriyihii wixii kulli iyagu waxay dhaheen غير قانوني bay ahayn ama habaan qaanuni ahayn bay u dhisnaayeen dadka noloshoodu habka ay u samaysantay ila maareeyay u baahan tahay hadda xataa غير قانوني tahay oodan guri kala lahayn oodan masjid kala lahayn oodan beer kala lahayn oodan dukaan kala lahayn inaan dhaho waraaq maadan haysan inuu ka burburiyo ma xigmad ba mise waa inaan dhaho warbal meel kale dhul ah warbal wax oo magdhow ah war wuxuuna la farsameeyay haddana qarax labaad bay dhalisay markii la 23 masjid oo muslimiin la dumiyay jumcadii hore mudaaharaad baa dhacay hadduu dambeysay mudaaharaad weyn baa dhacay ilaa 3 qof waa la dilay dhaawac waa jira xaalad yani waxaan rabaa inaan dhaho dagaalka Tigreega intii laga soo noqday waxaan maraynaa xaaladii saddexaad oo abuuranta waxaa marka Ethiopia culture ba u leedahay wax la yiraahdo crisis in crisis lagu maamulo idaaratu al-azamat bil azamat dhibka laftiisu ma dhibka lagu maamuli kii hore intaad ka guurto maxallin kartida ilaa maxallin kartida marka way deegaankan marka maxaa lagu xushay hadda hadii dad degan yihiin maxaa looga dhigayaa meel cusub horta Ethiopia kore seedo meel banaan ma leh inaga dhulkeena Soomaaliya meel banaan ku arkay Ethiopia seedo meel banaan oo qof lahayn ma arkaysid oo dhulkan kore ama waa beer qof leeyahay ama waa guri sidaa darteed haddaad rabto cusub inaad samayso waa inaad guri qof lahaa dul degto laakiin seed ku xallin kartaa qofkii inaad tiraahdo waxa magdhow aan ku siinayaa bal meel kale raadso ama la farsameeyo oo la yiraahdo intaana dhul ka qaadna intaana wax u reebno ama meel aan diyaarsanayn markaas oo kala la hagaag xun waxaan moodaa meeshii maadaama magaaladan u dhowdahay meel quruxsan oo markaas magaalo u soo batana ay tahay in la yiri meesha ku haboon laakiin aan la fiirinin dadkii meesha deganaa marka waxaan isleenahay hadii xataa majlis lacalaha la tashan lahaa waxaan leenahay golaha islaamka la yiraahdo meesha ka jiro Ethiopia oo dhan ka jira hadii la tashan lahaa xataa waxaan aaminsanahay xal badan keeni lahaa masaajidda iyo dhibkeeda way maxaa kaloo bees ku yiri marka masaajidda kaliya ku yiri guriya badan baa la dumiyay dawladdu iyadu waxay leedahay guriyaha iyo masaajidda wax oo dhan ba shahaado mayna haysanin laakiin waxa la yaab leh noqotay nin wasiir ah hadlay wasaaradda la yiraahdo wasaaradda nabadda iyo biiska nin ka tirsan wasiir dawlaha wuxuu yiri dadkan dawladda Oromiya sharci siisay waana qalad waxa hadda loo kacayaa in la yiraahdo qof sharci la siiyo dhulkan adaa leh in hadda la yiraahdo dhul male wuxuu soo ku eedeeyay deegaanka Oromiya marka meel 20 masjid ka badan ku taala macna waa meel dad badan ay degan yihiin waa 5 magaalo la isku furahayaa oo hal magaalo la iskaga dhigayaa oo kala googo'ona marka meeshu waa dhul weyn oo intaas oo kiiloomitir meel banaan aan lahayn farsamadii marka loo fuliyay yaa waxaan moodaa inay tahay farsamo aan laga fiirsanin baahida keenaysa in Addis Ababa laga guuro maxay tahay leeyahay falsafada aan waxa ku dhisantahay garan maayo runtii waa falsafooyin waxa ka socda Ethiopia qofkii oo faqri u dhimanaya waxa lagu leeyahay meeshan dalxiis baa laga dhigayaa halkan beer baa laga dhigayaa dadka meesha fadhiyana gaajo bay u dhimanayaan wax marka yara kala sareeyo oo fahmaynin oo aqliga dadkan ay ku nool yihiin aad moodo inuu laba soconba meel dadkii qofkii tuugsanayo yaa waxa lagu leeyahay qofkan tuugsanayo muhiim ah aniga waxaan dhisayaa meel dalxiis warka hadda noo soo degdegay waxa weeyaan xukuumaddu waxay leedahay waxaan dhisaynaa magaalo xafiisyada iyo wasaaradahana loo raro dalxiis laga dhigo qurux badan caalamku ku soo hirto meeshan Addis Ababa meel yara qadiim ay noqotay fikrad noocaas ka duulaysaa laakiin anigu ma qabo maanta dadkan arkay duruufahan arkay ku jira in inta cagta la mariyo leeyahay wax kale qurux badan baa la dhisayaa malayn maayo inay wax xigmad ku jirto ay jirto ma ka xiisaa hadda xilligan marka la taagan yahay Ethiopia imisa xiisadooda ka taagan waxa kale oo ka ilooba Tigreegi iyagana maalin dhaweyd waxay damcaan inay ururkoodii dagaalamada TPLF ay diiwaan gashadaan oo ka diiwaan gashadaan wax la yiraahdo guddiga doorashooyinka waa laga diiday waraaq bay iyaguna hadda u qorteen African Unionka way leeyihiin heshiisyadii waxaan ku galay waa laga baxay wax kamid ah idan issue-gii Tigreegu wali sidii buu taagan yahay qaybo kamid ah
amxaaro iyo xukuumadda sidan isku ahaa iyadiina dagaal weliba hubeysan baa ka dhex socda new booliskii qowmiyaduhu ay tiirka ay ku taagnaayeen isagiina waa la kala diray inkasta oo gobolkana uu kasii duruuf duwan yahay oo gobolada kale oo dhan gacanta taagan haye dheheen mayna kala dirin laakiin annaga kaanaga 14 beri buu ku kala diray madaxweynihii yuu kala diray new booliskii ciidankii dhamaada ninkii dhamaay madaxda ahaa boolista caadiga madax uga dhigay waay goboladii kale ma sameyn goboladii kale ma gacanta baa la taagay hayeen baa la yidhi waa Ethiopia way istaqaanaa way wata shaqadooda waay laakiin Soomaalidu waa daacad wallahi daacad dawladda annaga qalad kale maxaa yeelay haye intay dhahan baa la rabaa ciidanku iska joogo way loo fulinayaa Ethiopia kale uma fulinini oromo madaxweynuhu ka soo jeedo lama taabanin ciidankoodii ra'iisul wasaaruhu ka soo jeedo waay marka anaga dib waxaan haystaa markeeda ka hadli doono waay marka new booliska deegaanka ma jiro hadda la kala diray ciidankaasi boolista caadiga wixii ku biiran waa ku biiray wixii iska tagay waa iska tagay jarankii dhamaay haysteen waxa madax looga dhigay boolista caadiga see loo maareeyay kala diristooda marka lama maareyninba waa burbur ma maareynba waa la kala diray inta ciidan loo yimaado la yiraahdo hay ninkii booliska ku biiray oo ku biiray ninkii iska tagay oo iska tagay Ethiopia hadda intaas oo issue baa taagan kii Tigray wali dhamaanin amxaaradii iyo dawladda dagaal ka dhex socdo new booliska kala diris iyo qaraxii ka dhacay oo taagan haddana la soo federaalkii dhamaaba su'aal la saaray qowmiga ahaa oo daraasad la soo bandhigay iyo ugu dambeyntii hadda oo magaalooyin hore la sameeyo shacab iyo kacdoon iyo jiriyo masaajid la burburiyay iyo mudaaharaad intaas xaaladda markii Ethiopia hadda istabtaal waay Ibrahim dheer marka maxaa laga qarsoon marka la qiimeeyay Ethiopia hadda waxa la islaha federaalku waa jiri doona dadka qowmiyadaha Ethiopia degan federaalkaas aaday u ilaashan jireen uguna noolaayeen mar haddii awoodda dalka aysan gacanta u galin amxaarada waxa la islahaa federaalku weligiiba dhibaato ma gaari doonto laakiin abiy hadduu meesha joogo federaalkina hadda la leeyahay calaamad su'aal la gelinaya waa la baabiinaya yaa waaya cidda faa'iido ku qabta in federaalka la baabiiyo sidaa darteed baa waxaa la isweydiinayaa barnaamijkan hadda keenistiisu ma Ethiopia burburinteeda qof u socdaa wada mise sii jiristeeda 30 sano wiilka hadda joogay ee ku soo noolaa deegaamada Ethiopia ma yaqaan ba dawlad federaal leeyahay mana arag ba weligii tan tusaale ku soo gobolka Soomaalida wiilka hadda primary ka bilaabay jaamacad uga baxay ee wasiirka ah muuna wali xafiis intuu tago qof Ethiopian muuna ugu tagay waraaq la qorayana fahmhaari looguma qorin af Soomaali ku socotay ka socota la qoray primary manhajku ku soo qaatay waa manhajkii af Soomaaliga iyo gabayadii sayidkeeyay maanta oo shaqeeyana xafiiskiisa luqada af Soomaaligaana lagu qoraa madaxweyne Soomaaliyeed baana soo magacaabay baarlamaan Soomaaliyeed baa jiray yani hadda dabanti Mustafa ka horeysay xisbi Soomaaliyeed xisbi shacabka la ilaahay baa jiray oo isagu wuxuu doonay baa ahaday isagu madaxweynaha soo doorta yani environment-ka qofka ku soo noolaa 30 sano kadib marxaladii Mingistaanku ugu celinaya horta generation ma fahmayaaba sidaa darteed nooc riya ah oo marka u dambaysan aanu islaahay Ethiopia burburinaya way wax meesha ka socda lama garan karo marka yaa ka faa'iidaya laakiin ma laga filayo abiy marka iyo oromo ma laga filayo haba ka yaabin waata oromo markii la weydiiyay 190 daraasadii iyagu ay sameeyeen macadkii hawsha watay ee loo diray uu soo sameeyay wuxuu yiri oromo dadkii aan kala kulmay 190 way diideen waxa kale oo jiray hadda 20 beri ka hor jabhad waxa jirta hubeysan oo oromiya la yiraahdo waxyaabaha Ethiopia ka taagnaa oo ku sheegin oo ka iloway jabhad OLF la yiraahdo jirto hubeysan oo hadda oromiya ka dhex dagaalanta maandoodu waxa lagu wada hadalsiiyay dawladda Tanzania wada hadalkii dad waxay dhamaan burburay dadna waxay dhaheen ma dib baa la isugu soo noqon doonaa jabhadaas waxay iyadu abaabulantay u taagan tahay oromiya goori u istaagtaba dadkii marka waxa lagu celcelin hayay wadanka ka inay ku jiro federaalkana weheshada la lahaa haddii hadii la federaalka waa laga takhalusi oo nidaamka Mingistaa lagu noqonay exactly macnaheedu waxa weeye waa burbur meesha burburta weeye oo wana la foo gobolka iyaga afayeenkeeda uu hadlay wuxuu yiri anagu jamhuuriyad gooni ma ku dhawaaqaynaa hadii mashruucaas hadda macadka soo bandhigay la hirgeliyo oo la fadhiiso waay idan issue-gii wuxuu noqday issue aad u weyn oo sahlanayn oo u baahan hogaaminta maanta siyaasadda Ethiopia joogta in si dhab ah uga fakarto oo wax badan military iyo lagu xallin karin amar in la fahmo oo wiilka 40 jirka 30 jirkii maanta qori afkii waan ku diliyo waan ku xiriyo ajandahayga qaado inayna shaqeyneen laakiin ay shaqeynayso walaalo maxaa yeelaa waay Ethiopia markaan inta uga gudubno deegaanka dan u nimaado doodaha deegaanka ka socda maxaa kamid ah hadda mustaqbalka la xiriira deegaanka Soomaalidu hadda ka hor annagoo dagaal iyo dhib iyo wax walba ka jiro waxaan ahay number jira oo Ethiopia kamid ah oo wuxuu la yiraahdana laga doodo wuxuu nacam yiraahdana taageero loo arko 4 sano u dambeysay waxaana qabsaday team aan siyaasadda horena ka warhaynin to ayagu soo barteen jirin
تو ay show sugayaan aan jirno Facebook la yaala oo moodahay meeshaan ciyaarta Facebook in lagu hayo teamkaasi marka hadday maqan yihiin looma yeero hadday joogaan wax lama weydiiyo haddii wax la soo amrana way fuliyaan saalan hadda ku siinin maalintii teamkan hadda jooga ay yimaadeen waxaanu lahayn kilil gooni ah yani waxa lagu wareejiyay subaxaas baarlamaan madax banaan xisbi madax banaan oo deegaanka Soomaalidu leeyahay yani oo isagu wax doorto isagu wax rida madaxweyne la doorto maxkamadaana anagu leenahay ciidan new police anagu leenahay caawa intii oo dhan way wareejiyeen xisbigii BB-dan ay ku dareen xisbigan BB Abiy Ahmed Addis Ababa laga maamulo yaa xisbigii lagu daray macnaheedu waxa weeye baarlamaankii meesha ilaa hal xisbi baa xukumay wuxuu ka imaanayaa kor madaxweynihii kor baa laga soo magacaabaya baarlamaankii kulli wixii dhanba kor buu nooga aaday yani qaybtii siyaasadda oo dhan horena looga wareejiyay waxa noo baaqi ahaayoo kaliya ciidamada new police-ka ciidamada new police-ka meel dhow bay dawladdu proposal keentay oo tiri Ethiopia ciidamada police-ka waan kala diraynaa Ethiopia hay'ad tiro gacanta la wada taagay wixii amxaara ka soo haray oo iyadoo dagaal ku jirta intii kale oo dhan ciidan qolo fulisay ma jirto Afrika gudaheed madaxweynaha ku fuliyay oo ciidanka ku baabi'ay maxaa keenay marka awoodaha soo dhan gacanta Soomaaliyeed ka baxaan watan ku sheegahayo dhalinyaro yar oo moodaysa amarkan iyo waxan laga dalbay inay hadalba soo celiyaan ayna ahayn markaan si kale u dhaho siyaasi maran waxaan ku magac daray waa meeshii qabsaday siyaasiga maran waxa weeye soo qadiyado ma leh hay'adaha ay u shaqeyn jireen moogtay qofka Soomaaliga ee hadda WRC u shaqeeya ama UN ta u shaqeeya isagu hay'adan ma leh mushaar buu ka qaataa waxa la dhahay intii lacag loo dhiibo lacagtan qaad soo fili projectigaas laakiin UN inay fashilmaynin riskigeeda ajandaheeda shaqo kuma leh waddankiibay ay matalayaan bay rabanaysaa uga shaqeeyaan oo waddanka qof kale leh iyagu shaqaale ay ka yihiin waa la soo amri wayna fulinayaan mentalitygaas marka meeshii yaala wixii la keeno hadalba kama soo celinayaan waxaa la yidhi kaaraamardha uga dhisa ciidankii dargiga ee 77kii Ethiopia oo dhan wada fadhido TV-ga saa loogu hayaa la yidhi ka dhis hayabu suurayso maxaa laga dhisay kaaraamardha waxaa laga dhisay ciidamadii dargiga ee 77kii nagula dagaalamay jigjiga iyo kaaraamardha ee dadka nagi laayay ee xasuuqay yaa waxaa la yidhi waxaad u dhistaa taallo ay halyeeyay yihiin Soomaaliduna ay tuug ahaayeen ku soo duulay waddanka laakiin taa waa la diiday Soomaaliya yaa diiday موقفك أو مصطفى وعدا إلى تبعه قد يذا لحر ذلك كان حرمة يصير ما جرت يلا الله يفضلنا وأقبلي أو سواق عطيبات على شعبك يعني يبقى عني حاجة لكن بوجا يوكردوين اللي وتاريخ ده ماشي لقى حد لاعه وحليه ماشي وحيا الله وضدك الله شيء وسكر الله مرة بابي لكن حقيقة حتى هاي مصطفى إنه سنة قلين وديدي إن تاريخ ده سومالي ده لبابي أنا واحد دوبنا بان كحلينا وقلبي يجري أنا وما فرينا مصطفى ميل بابليك ولا بدتاين اللي سوي استاجية اللي رقاد بوجن لعقتك كسر بحنا كهرم مرة تعالى كجد سوولي بقى لا شرحي ولا يدي هل يدي سأروح حصوصنا كلمة منا كده حياة بورتمر سوقات ده معارض كي كعي شعب كي كعي وما ده ورم كعضي مركي لا كيرين يسعوني نبى اللي يريد الحيسي وحنا كده سينا وحمرك كعجة وضع قبل إثيوبيا أرجع على ده كلام يجرو أنا كهرم أنا لقيت إيجابية ويقبلين waxaan lagu tijaabiyay new police-ka kala dira way aqbaleen hadda federaalkii baa la joogaa intii u dambeysay oo waraaqaha ku qornayd hal kalmad mayna ka soo saarin hadda markii la yiri Soomaalidu federaalka waa la kala dirayaa shib anaga mucaaradka qaylqayleyna maxay kaaramarda muhiim ugu tahay Ethiopia waa meel taqriiban ramsiga ahaa meel qolaji la yiraahdo ku dhow ba dagaalkii weyna ka dhacay laakiin kaaramarda istiraatiijiyad juqraafi ay leedahay oo buurahan ama xadbatul xabasha la yiraahdo ama buurahan dheer ee isku taxan yaa ku xidhma halka dhulka buuraleyda ee roob kalaad ka gali Ethiopia halkaas ka gali markaad ka soo baxdo banki jigjiga waxaad soo galay dhulkii Soomaalida ee xoolo daaqi jireen ee saxraaga oo kala ahaa Ethiopia marka seedaba dhulka ay si rasmi ah u tirsato ee greenka ah evergreenka wax walba ka jiraan yaa waxay ka bilaabataa halkan kale waa juqraafi military ahaan waa meesha waxa la yiraahdaa difaac dabiici ah ama difaac natural ah dabiici ah oo aad wadanka ku difaacan karto afar wiil haday halka fadhiisato wax mari karaa ma jiro marka berigii la dagaalamay istiraatiiji bay aad u ahayd rag badan baa ku dhintay saasi marka aan islaahay ahmiyad juqraafi ah way leedahay ahmiyad taariikhi ah waay marka inta had xaalad waraaqi u dambeeya la maraya oo nidaamka federaalka laga takhaluso nimankii namatalay iyagu hore bay ka saxiixayaan wax doodana kama qabaan maxaa looga doodi waaya marka qadiyadahan idin dhex yaala oo deegaanka yaala oo dadku ay dareynayaan inagu kama doodi karno miya
بس ماله لوقا دودا ماله برلمان ماله حزبيه او دودا ماله شعبك ماله annaga markaan xagga joogno Ethiopia wadankaasi waa wadan dadka 30 sano la soo abuse gareynaya ma 120 sano iska dheelaan 30 sano ugu dambeysay dadka naga waa la dilay qofkii ganacsadaha waa ever ugaaski waa ever sheekhi waa ever siyaasi isaga haba sheegin 30 sano waxaa naloo sameeyay Mustafa sheegay waxaan nahay we lost generationkii lumay maxaa yeelay si systematic ah loola dagaalamay qof ardayga waxa lagu leeyahay ilaa shahaado jaamacadeed buu wataa waxna ma yaqaano waa ka soo loogu talagalay tacliinta baa lagu ciyaaray qof la dilay qof la qaxiyay qof la kufsaday qof la xiray kii lacagta lahaa cornel ama janan tigray alla lahaa uu abuse gareynayay oo ganacsadihii waa dhintay ugaaska waxaaba la yiraahdaaba isagu wariya waxa saxiix kan siyaasiga isaga sidiisaba waa awaamir dadka joogay wadada saasa marka dadkan ay nooca ahaa anaga xisaabta mucaaradka soo koronay oo background inagu dibadda ka nimid annagii baa yara qaylqayliyayna laakiin shacabkaaga inaad soo qaado waqti dheer bay qaadanaysaa haddana maxaa caqabad ugu ah shacabkii markayba soo dhawaadaan oo dadka aan kuu sheegayo oo dhan damiirkoodii waxba u noolay aan isla soo dhawaano kooxdan siyaasiyiinta naga adeegaysa tusaale ahaan hadda intuun waxaan badhicin sanad muddo dhan baan waxaan soo diyaarinaynay shir qowmiyadeed oo shacabku ay abaabuleen annaga xisaabtii mucaaradka iyo dowladdu markii hore waan raacnay kadibna waxaa burburisay dowladdii oo maxay tiri haddii inta qowmiyad la isu yimaado qodobka federaalka laga hadlo oo wax walba laga hadlo mowqif qowmiyadeed baa soo bixi oo ka soo horjeeda Highlandiska dadkan buurta korna soo amraya taana inaga maslaxa inoogu jirto dhag oo naga kasalan shirki annaga marka meeshan ku cabiri lahayn qowmiyad Soomaaliyeed waxa caqabad nagu ah groupkan Facebook la yaasheena haysta way Ibrahim waxa muhiim ah isweydiino deegaanka nidaamka hadda ka jira waxa la qiray oo dad badan ay og yihiin xorriyatul qowlka markay tahay nabadgelyada markay tahay in meeshii ay noqotay meel la wada leeyahay oo dadku say rabaan u hadli karaan maxaa diidayeen doodan la qabto mustaqbalka dadka laga hadlo waxna waa daily life-ka hadda ganacsada tahay deegaanka isbedel baa jira waad ganacsan kartaa taaba lama hayn hadda sheekh kutub akhrisanaysaa ma daily life-ka waxa ah iyo masiirka ugu masiirka ka khatarsanay waay gobolkanaga wuxuu helay dadka shacabka la weyn qofkii la dilahayay waa istaagay gabadhii la kufsanayay waa istaagtay laakiin gabadhii la kufsanayay iyo kan la kufsanaynin iyo sheekhi iyo ganacsigii iyo siyaasiga oo wada soconaana la xaraashayba geedkii iyo qofkii iyo dhagaxii iyo kulliganaba for sale waabana la xaraashay oo annagu waxaan meeshan ku joognay Ethiopia kula joognay muxuu ahaa waraaqaha xuna federaalkan way heshanaynay intiiba annagoo taagan xabad loo gogoynaya iyaguna hore ka saxiixayaan marka halka qof ee la iga dilo yaa shacabka u muuqda qofka la xidhaa u muuqda laakiin ma muuqdo ama ma garanayaan taariikhdoodii oo karaamardha laga dhisahayo nin amxaarata looga dhisahayo ma garanayaan gobolkoodii oo maalintiiba intaasoo boqol oo nin intay soo galaan oo mustawqiihii deegaanka qaataan ayba la wareegayaan ganacsiga noloshiiba oo birrin ay doorasho ka soo galayaan ma garanayaan ciidankii new booliiska ahaa ee ku deganaynay xuduudaha noo waardeynay la kala dirayo ma garanayaan baarlamaanka iyo madaxweynihii aan soo dooranayno meesha ka baxay ma garanayaan hadda waraaqahan yaale ee la soo bandhigay la leeyahay waa daraasad federaalka lagaga takhalusahayo idan dadkanaga gobolkanaga marka lagu leeyahay waxba isbedelay waa noloshii dayliga ahayd bal inta maxaa dheer qof kasta oo aragti leh oo ama xisbi ah ama siyaasi ah oo ra'yi sheegi kara isagu ma xoroobin hore laga xidhayaa la saraada maxaa dhacay aan ONLF iyo annaga meesha ka jirna ONLF waxaan u malaynayaa wuxuu u leeyahay kamid guddigeena fulinta dhowr iyo 10 baan hayno 4 qof baan la xidhin buur aan wali jeel soo marin inta kale oo jeel bay soo mareen ko ONLF uu kala jabiyay laba loo kala jabiyay annaga xisbiga kula hadlay laba loo kala jabiyay xafiiskaygi wixii yaalay xoog baa lagu qaatay macgaarigayga shakhsiga baa la qaatay haddaad hadasho waa lagu xidhbaa yacni dadka xoroobay ama leena waxba u hagaagay waa ninka nolosha caadiga ah marka hore ka xidhnayd baa loo furay ganacsadiga miskiinka sidaa darteed gobolkayagu dadkii aragtida lahaana xor ma aha haddaaban wax isu keeni lahayna waxaa caqabad nagu ah nimanka shaqaalaha ah muxuu marka xalku noqon karaa hadda wuxuu noqon karaa oo keli ah meeshii dooniga hana koos garayse inaanu qabanno shir qowmiyadeed iyagoo na hortaagan na xirxiraya nala dagaalamaya annaga iyo shacabkana shir qabanno aan soo saarna aragti Soomaaliyeed oon siyaasina gooni ku ahayn qof shacabana gooni ku ahayn oo la yiraahdo qowmiyadda hadda amxaara fiiri markii la yiraahdo ciidanka new booliiska aha waa la dirayaa waa la kala dirayaa amxaara dhan dhinac way soo qaacday maxaa diiday shirka qowmiyadaha deegaanadu waa deegaano qowmiyadeed annaga waxaan nahay nidaamka baa qowmi maxaa la isku diidaya annaga systemkan haysta wuxuu yahay system ciriiri ah afar wiil oo Facebook la yaala oo show u arka meeshan company ay ka shaqaynayaan oo inaan lala lahayn aaminsan oo kule fircoon baa waxa ayad quraan leedahay ma uriikum illa ma ara
fircoon baa wuxuu yidhi dadkiisu soo shiriyey waxaan anuu ra'yi idin arkoon baa ra'yi idiin ah wax saasoo kale ah weeye sidaa darteed maanta qowmiyadda soomaalida waa inaan shirino kay doonina ha xidhaan kay doonina ha dilaan waxay doonina ha sameeyaan qowmiyadda soomaalida waa inay mowqif yeelato aragti waa inaan soo saarno war haddaan dagaalkii aanu iyo go'itaankii ay tabarinoornu sheegtoon samayn kari weyne inaan federaalkii ka tanaasulla maxaan ugu kalifahaya ma annagaa hadda maanta wareegto sidii mingiste madaxweynahana naloogu soo magacaabi muxuu ahay nolosheedoo dhan laga dhigay central sidaas aan Ethiopia kula joogi karna ma aha marka xalka kali ee hor yaalla waxa weeye mucaaradkii intaan isu nimaadno iyo shacabka qaybihiisa kala duwana oo shir qowmiyadeed qabsano qurbo joog iyo qaran joog isu nimaadno inaan dhahno Ethiopia oo federaal qowmi ah ku socon inuu kama sii mid ahaan karno haddii la rabo Ethiopia inaan ku jirno waa inaan kala jirnaa oo hadda maamulka jiro waxa leedahay federaalka ma aaminsanaba in sida lagu wada jiro qowmiyadu ay qowmiyadooda ismaamusho ma ogola ma jirto hadda Mustafa wuu ku khudbay bari horaba soo ma soo dhaweyn ba isagoo waxa warshan ba imaaniyo soo intuu hadlo wuxuu yiri waxan waa qabaa'il hala baabiyo qowmiyaadka Ethiopia afar jiha iyo center laga dhigo wuba aaminsan yahay ba isagoo ciidamo ku qasbay tii oo maanta maxaad maran korna laga taageeray laakiin arrin waxaan ogahay isagoo ka hadlay qowmiyadda Soomaalida oo aan ka tanaasuleyno dhahay Soomaalinimadu waa wax laga tanaasulo ma hadda away في أكشن كه واحد هذا التري وإنه أكشن كوافقه مركز أقولانه يسو إن حزب يسوع ديان كسومالي ده توبيا سنتر كلا كسوم مجعابه ومدحوني لسوم مجعابه أقولانه يسوع ود يريد عيدا كلا كلا ديره وما أنت دراسة الله صار ديان على كهلين أنا هذا كلام محمد معنا ناصر مينه لكن مركز هراء انتوش اللي ذكر كير هذا قبل سومها لفتيس انتوش اللي ذكر كير والله مركز حالة أنا مركز كجرني نينك هراء مركز الله فيريو وأوبشن والبقى مركز إيمانه إنه نرد عمان وقبني أنا maxay anaga waxa deeliga noo muuqday fiiri markaas dastuurkana uu khatar kuma jirin iyo qowmiyadanadu new police ku khatar kuma jirin kara marada taala nala dhisama lahayn T-Said ka man ka dhisnay oo bariga la dhisay laga dhisay jigjiga makhatir anaga masiira noo muuqanin khatar masiira noo muuqan laakiin waxa noo muuqday ayaan la caawil xirayo la dilahayo Zaynab wala kufsanayo anaga waxa noo muuqday deeliga qofkan iimaanayna qof mucaarado oo mowqiftiisa la yaqaanay buu ahaa oo islaam waxaan ka badbaadinaya tii deeliga hortaagan deegaanka Soomaalida madaxdooda inay doortaan maxaa hortaagan oo qof shacabku santuuq ugu riday oo cod shacab ku yimid uu meesha joogo marka koowaad horta xaalad guud oo Ethiopia aan qayb ka nahay oo doorasho xor meesha ma jirtaba oo markaan anaga si deegaanada qaar madaxweynayaasha looga magacaabo isga ugu soo waday si guud anaga waxaan u ogolahay awoodda qaybo badan oo wiilashan laga xayuubsadaa jira taama taan ku haysano waa tasuuroobi karta taan ku haysano oo ah doorashada hadda mesela waxa la yiri waa inaad xisbigu soo baxaa laakiin lama dhihin boqolkiiba boqol waa inaad soo baxdaan waxa u furnay boqolkiiba 30 boqolkiiba 20 boqolkiiba 40 inay mucaarad baarlamaanka soo geliyaan marka iyadoo xumaantii jirto haddaad ku sii darsato soo dhibaato ma aha dawladdu xisbiga meesha ka taliya wuu rabaa inuu soo baxo laakiin gobolada kale haddaad fiiriso waxaad arki gobol mucaaradka inta u soo gashay muxaafidkiina inta u soo gashay dawladda xataa gobolada kale ka dhisan waxaad arki dawlado tiro fiican oo dad ah oo mucaarada laga qayb geliyay حتى فدرالكي وحو كقيب جليي ضد احزابته يا دولتي فدرالكي laga qayb galiyay kuwa waxaas ma jiraan group marka ku naxay meeshan oo ku sasay oo moodahayba show boqortooyo aan laga dhimanaynin ba meesha qabsaday marka doorashadana waxaan ka farsameyn karnay markii la lahaa soo wareejiyay xisbiga waxaan ka farsameyn karnay markii la lahaa ciidanka new police kala dira waxaan ka farsameyn karnay maanta oo la leeyahay federalismka waa loo dhameynaya waxaan qaban karnaa laakiin qofka ku hortaagan haduu maran yahay waxaad sameyn kartaa waa iska yartaa laakiin deegaanada kale madaxda qaar waxa la leeyahay ayaga dadka shacabka iska leh baarlamaanka doorta nidaamku ku yimaada laakiin in sida governor ladii soo magacaabo madaxweynaha mushkiladu waxa weeye ka hadlaya maxay isbedelay marka 30kii sano ee TPLF ay jirtay waxa jiray qowmiyado qaraarka wax ku lahaa oo xisbiga lagu leeyahay EPRDF xisbi la yiraahdo meesha ka talin afar qowmiyadood buu ku dhisnaa waa Oromada iyo Amxaarada iyo Dhabuubka iyo Tigreega afartaas sano dadkoodu way koreen maxaa yeelay sunaacul qaraar dadkii decision maker ka qayb ka ahaayeen afarta qowmiyadood ilaa maanta waxba u nool maxaa yeelay iyaga xisbiga xaakimka wax ku lahaayeen ba anagu maanan ka tirsanayn oo xisbi goonaana waan ahayn meel dagaal ka socdo oo la garaacina waan ahayn 30kaasna marka Oromiya maxay hadda ku Tigreega meesha kaga qaadeen 30kaasna dad baa u samaysmay maadaama oo percentage xorriyada ay jirtay annaga laakiin 30kaasna madaxana looga taagnaa dad noo soo kacay ma jiro generation-ka annaga noo soo kacay baa xukunka haya hadda Oromana waxa xukunka u qabtay generation-kii xisbiga ka tirsanaa oo lama magarsa kamid yahay ninkii marka hadda Tigreega la riday ninkii madaxweynaha gobolka Oromada ka ahaa abiyeegan
waxay soo baxahayaan 30 sano ay samaysmayaan maadaama xisbiga xaakimka ah ku jireen shacabkooda iyagu qayb awooday lahaayeen taasi marka waxay keentay maanta generationkoodu say u dhaqmayaan iyo kuwana say u dhaqmayaan waa kala duwan yihiin kaana qof la adoonsaday oo dulli ah oo noloshii xageen seexdaa iyo maxaan cunaa lagu soo reebay yaa laga dhigay dadkanay iyaguna way doodi jireen oo baarlamaanka ka doodi jireen oo xisbigooda iyo waxbay doodi jireen ta hadda timidna maxaa weeye group intay 10 sano wadanka ka maqnaayeen 10 sano u dambeysay wadanku dhibku ka dhacay ninkan odayga meesha uu ka maqnaa waxay keentay marka hab dhaqankii ishida ahaa mingisto waqtigiisii iyo inuu fahmayo iyo ma aqaan calaaqo amxaarana sibay u jirtaa oo nidaamkan federalismka ba ka soo horjeeda annaga marka caqabo maamul baan haysatay shacabkana hadda shacab raba ma aha in federaalka la baabi'iyo xisaabtana siyaasaduna ma rabaan laakiin waxaan haysta team yes man ah haddana federalismka baan ku qanacsanayn waxaa muhiim ah inaan fahno oo dadka Soomaalidu ay fahmaan marka laga hadlaayo masiir umadeed ciyaar ma galo saada sheegayso kale malazanaw markuu joogay qofku rabo suuq ka soo qabsanay uu keenay nidaamkaas waa la yaqiinay soo shaqeynay nidaamka abi wax isbedelo iska dhigay isla sidoo kale dad baa la idin keenay idin xukuma marka maxaa loo dabaaldegaa oo isbedelay ma markii hore tawradu say u dhalatay tawradu siday u dhalatay saa waa ka duwanay tawradii timid waxay ahayd nidaamkii magac dastuurka intay qortay aan fulinaynin aan meesha ka qaadno sanadkii horreysay isku khudbeeyay abiye ficlan wax badan baan ka aragnay Ethiopia hal sano gudaheed baa wax conflict isku dhacay la waayay markuu yimid ee uu khadkii ku dhawaaqay ku socday marka inaan wada dabaaldegno sax bay ahayd annaga Mustafa cid walba timid isbedel ba u muuqday Soomaaliduna way isku dubarintay waa kiina loo qaaday heesihii Soomaaliya toosoo aad ogeyd waxa isbedelay hal sano kadib uma kitaab madamar la yiraahdo keenay oo ay ku qoran tahay nidaamka federalismku inay Tigray u sameeyeen Ethiopia in la kala burburiyay loo baahan yahay Ethiopia midaysan halka markay soo baxday markay niba mowqif qaatay annaga mushkiladna halkaas ka soo bilaabatay nimankii kor hadii hawshan keeneen waxa la rabay anagoo qowmiyad Soomaaliyeed aniga Mustafa oo wala oo wada soconna iyo shacabkana inaan idhaahno anagu ma aqbalayno qaraf horu ka saxiix madamartana waan haybuur Ethiopiadaas lagu dhawaaqay afarta waaxood ee centerka aan rabaa finish from that time bu marka anaga faylka nagu qasmay maanta marka action waxa fulahayo maalinba chapter baa la xidhayaa chapterka u dambeeyay hadda maraysa calankii yaraan in la dejiyo kililka wax federalism la yiraahdo laga takhaluso markaad qiimeyso madaxda gobolada dalka Ethiopia marka laga hadlaayo dadka matalaya ee siyaasadda ku jira ee aragtida leh ee wax diidi kara wax yeeli kara iyo markaad qiimeyso deegaanka Soomaalida hadaad fiiriso wasiirada dawladda federaalka ku jira golaha kuwa deegaanka ku jira waa dhalinyaro abi la faca oo mataqaana aad moodo in generation la isugu talagalay u yahay dadku waa weynaaye wax garadka maxaa ku dhacay horta qorshahan waxa la yimid Tigreega sidiisaba Tigreegu 92 markii yimaadeen annaga kulli gobolka naga xoogaal u ahay waxay ugu yimaadeen dad waaweyn oo dadkii iyaga xamar ku hayn jiray iyagoo ugu yimaadeen wadanka sarkaal hebel iyo jalan hebel iyo sheekh hebel iyo ganacsade hebel iyo Tigreega waxay noqdeen biciyaal ajendiina waan isku khilaafnay oo sacad bay Soomaalida u soo dhigtay barigaas dhaqankoodii iyo intii la wada fadhiistay iyo siyaasiyiinteeda waxa la yiri saad eritay oo madax banaysan oo madax banay Zanaawi maalintu inta arkay buu go'aan qaatay marka wuxuu generationka waxa kama qaban karo waa inaan ka dhigno midaan dilo midaan xidho iyo mid carara wiilku 5 jirka ahaa buu qaatay iskuul geystay waa kuwa maanta xukunka haya generationkan marka in nooca loo sameeyay TPLF baa soo bilowday sidii bayna u socotaa had iyo jeerna waxa la isku dayaa generationka yaryarka ah la soo sameeyay ashiradu u dhigi jiray waxa kamid ahaa wax la yiraahdo guumaysi leedama guumaysan jireen waa la idin dulmin jiray what's the different maxay macnaheedu yahay sameeyay Soomaali haduu dulmiyana waa guumaystay amxar haduu dulmiyana waa erayadiiba u kala duway moogtahay ha nin cad baa wax guumaystay kula nimada wax falsafo wiilashiiba hadda waxay ku dhihba adeer walina dulmin jiray leedama guumaysan dulmigan inaga Tigray uu wada dhacay ka baxnay oo markaan ka baxnay xataa hadda ma ku raaciya hadda gabdhahayga kufsado idila waa Tigray anima xageen kaga bax dulmiga ma dhahayaan sidaas cashirkana loo soo dhigay sidaa darteed annaga generation hayrarkana loo soo saaray ilaa haddana lagu xukumaa waana yes man wuxuu soo celina ma jiro maxaa yeelay macalinkiisa wuxuu soo dhigay baa nin walbana macalinkiisa uu jecel yahay amarkiisa qaato ma islaada mustaqbalka deegaanka markaad qiimeyso oo si xalaal aad u qiimeyso dadka maanta jooga jiilka maanta jooga waa garan karaan taariikhdii ummadan iyo mas'uuliyadda hortaala ismalihi sababtoo ah proof cad baan u hayaa marka koobaad iyaga Mustafa ba sheegay oo yiraahdo lost generation baan nahay
وما هو إحنا نكون بين أبورنا يوان تو مواقف توضع أن مركب فيرسو هذا الصدح أفرن كبضا والدولة دا كجرا أنتو سو استعجب من البحوري دجالك بلا وجدة أها أمد الوبربري يعني وفرم 1964 إلى عام واحد دجال سوق الله يجوا شفته يقعنان مدحوينها كوكب من ذا وكل العليا ولبه مرة بدل ما سوق رأون كل والبوحة حتى يسقوها إنه ماشي هذا ويحيى هو مقدس عن كذا إنه أبيوين واحد كل إنتاني أنا عاي وأنا واحد شيء وحتى صارك وقف لان أباها نك يدلي إن تعالى أول سيسو أباها أنا وياهي مجرم لأن كان وياهي هليي إحنا مركا تيم كان جنريشن كان ما أنت جوا سيد مصطفى الشاهين تانا مثلا والله جنريشن ما أنا أقرن كران مرحلة ما أنت لما رأيه تي هورية تنا إسكو ما حري كران تاريخه وأور إسكو حريرسن حرجة هدي حرجة لما تقول حياة لجوية أور توي كلا حريسة تاريخ ذي ويكلا جوية نمانك وده كان يستتي بألفتح جنريشن كسو صارنا تاريخه أو كلا قانته وحكون ليه وحنود دبر عن القريين بلا وجدة ده سيرس أمرك هلا أساس وهلا هاي التكرار وحكون لهم وضل الرساء يقول الرساء يا ضل قف كانوا وإلا دلو وحكون ليهن هرو مركب نجي مسكح المركب ولا جد لي لكن الغاية بهلا مية وحلا الرسم marka generation kan waxaan u qabaa inuu yahay generation u baahan dhaqan celin maxay go'aanadoodu u dhimi karaan taariikhdii ummaddan ay soo martay iyo wasiirkooda completely way distorgareen baa ku leeyahay haddana la joogo u dhimi karaan ma wayba u dhimeenba ko markaad ogolaatay in ninkii amxaarka ahaa maxay afartan iyo sideedii qabsaday 77 dadkaygii laayay inaan taala u dhiso taariikhdii ummaddan waad burburisay ummadana kama tirsanid qof amxaara tahay hadaa saan nolol dhaqanto yani anaga 77 oo waxa ogeeyay Soomaaliya ku dhimatay ninka yiri janankii amxaarka ay soo duulay waa walaalkeeya oo u dhisaya taalo Maxamed Cabdullaah Xasan waan dimin waayay Soomaa ma taariikhdaas aysan aqoon mise wuxuu ka aqriyay laakiin de uma hayo wax abitayda baxardaar buu u hayaa iyo moral u hayaa oo uu arkaa tusaale oo ku dayanaya oo janankii amxaarka ah ee bariga joogay iyo caruurtiisii hoosta ku haystaa ku ooyaya sidaa darteed taariikhna way burburiyeen waxay burburiyeen intii wadanka ahaydna loo yaqaanay juqraafi ahaan in la socotay in kala ma anaga deegaankayaga harar baa ku jirtay taariikhda hore Itoobiya harar baa laga maamuli jirayba mund Axmed Guri oo meesha ka baxay ilaa maanta harar iyo Soomaalida iyo Cafarta iyo dadkan Oromada ah kulli harar baa caasimada wada ahayd wala soo wada googooyay TPLF يعني waxay goysay ila baabil markaan ku sheego macnaheedu waxa way jigjiga waxa u jirtaa wax yar 100 kilomitir yani wadanka naga hadda wuxuu maray jigjigaaba u sareysaba intii kale oo dhan way bixiyeen ninba maruu soo bixiyayba generation ka hadlayna 30 sano moogta baabil ninba bixiyay Soomaaliya oo madaxweyne qaybtan hadda Shiniile madaxweyne kala bixiyay isaguna hadda intuu waan ku dagaalamayaa markii laga adkaaday baa dadkii buu wixii soo badbaado ka soo raray generation oo marka dhulka nagay intii aanu lahayn almost waxaan dhihi karaa hadii shan meel loo dhigo meel way bixiyeenba idan taariikhdana way burburiyeen dhulkiina way bixiyeen maamulkii noo jiray ee ismaamulka ahaa ee Tigreey noo sameeyeen isna way rareen oo hadda siyaasi military way bixiyeen hadda waxa u dambeeyo bixinayaan waa qaybtii federalismka qowmiyadaha ku dhisan inta marka la bixiyo marka wax noo haray ma jiro waa aniga iyo ninka amxaarka ah ee baxardaar joogo isku xuquuq baan ka nahay jigjiga dhaxdeeda doorashada haduu iga bato iga qaadi hadii aan ka batana ana ka qaadi qiimeyntaada deegaanka Soomaalida xaaladan markaad fiiriso isbedeladii dhacayay wixii la rajaynayay isbedelan waxaan waqaanaa markii dadka halgamay ee halganka galay talada la wareegaan dadka maanta taliyana dadkii soo halgamay dadkan dhiigooda u shubay ma aha waa dhalinyaro yar oo la soo abaabulay oo meesha la keenay marka adiga qiimeyntaada iyo akhrintaada si Soomaalinimo aad u fiiriso mustaqbalka deegaanka Soomaalida wax ku dambeyn doona waqtiga dhow ama waqtiga fog marka koobaad Itoobiya aan qayb ka nahay oo xaaladeedu aad isu bedelayaan oo la garanayno siday hadda u socoto laakiin hadda u socoto nimankan ay mas'uuliyiin si ahaadaan waxaan ku soconaa gobol Itoobiya ka tirsan oo xadaaradiisii Soomaalinimada ahayd iyo taariikhdiisii iyo dhaqankiisii iyo siyaasaddiisii la cayn wareejiyay ka tanaasulay completely waay oo aan hawiye gooni ah ama identity gooni ah aan lahayn oo hadduu ku noolaanayo baxardaar iyo hadduu jijiyo ku noolaanayo isugu mid tahay oo culture-ka Itoobiyaanimada ee hadda la wado ee amxaarismka ka soo bilowday amxaarismka ku dhamaada
u yahay culture oo shucuubtan hadda dhul la'aanta ah ee malaayiinta intay nagu soo guuraan aan anaguba iswaayi doono marka qowmiyad Soomaaliyeed baa jiri jirta la dhihi doonaa qiimeynteeda aad iyo aad u mahadsan tahay Ibraahim Maxamed Xuseen Ibraahim Dheere waa gudoomiyaha xisbiga FEB ee deegaanka Soomaalida oo barnaamijka marti noogu ah daawadayaal ku mahadsantiin daawashada barnaamijkan wixii ra'yi qaybta hoose ayaad noogu reebi kartaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh si aad mar walba u hesho barnaamijyada ka baahan noolaato oo dhammaystiran waxaad u baahan tahay inaad rukumato ama subscriber ka noqoto barta YouTube-ka adiga oo markiiba heli doona barnaamijka markii aan soo gelino waad ku mahadsan tahay ku xirnaanshaha ha noolaato taageeradiinu wax weyn bay noo tahay mahadsanid